بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة وحاجة سورة قاف أيالي هذا وسورة مكية سورة مكارين أي كان الجرين وأصوش الدين كأن عقيدة أي سورة سوق قاضنا إسلام واحد لماذا إلهي في سارة المدقة أي إيش صوابحنتم وحي سورة كوة ليس وموضوع أول أي كان ليس أيتهن والبعث والنشور إيش صوابحنتم ضمن أي سورة قاف aad ay uga hadlaysaan waana meesha muhiimka ah oo dadku ay ku dhamaan doonaan ruuxii aqli lana hawshiisa oo xagga ay u raranayaa meesha say ugu hagaagi lahayd ayuu ka fikirayaa laakiin ruuxii aan aqli lahayn meeshan tarasadka lagu yahay ee dhan dabangaalaha ee aan waxba ahayn ayuu alaabtiisa dhiganaya wuxuu u maleeyaa meeshii ugu dambeysay inay tahay markaas uu khasaari doonaa marka suuradu bacsiga iyo soo bixinta dambe ay aad uga hadlaysaa waxay ku bilaabanaysaa kufaar quraysh oo inkirtay arintaas iyada in loo dhaarto oo loo tilmaamo arintaas inay jirto waxay ka hadlaysaa kuwa diidan bacsiga inay fiiriyaan koonkan ilaahay u abuuray sida uu ilaahay wax u soo bixinayo wixii la abuuro allaha dhirta soo bixiya ayaa dadka dhintayna soo bixinaya suuradu waxay kale ka hadlaysaa dadkii hore ee ummadii hore ahaa ee rususha ilaahay beenay iyo wixii ku dhacay waxay ka hadlaysaa sakraatu mawdka iyo geerida dadka sugaysa iyo sida ay wax noqon doonaan bacsiga iyo soo bixinta iyo boonka la afuufi doonaan suuradu way sheegaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah magaca ilaahi ayaan tafsiirka suuradan ku bilaabaynaa allah arrahmaan naxariista guud laha allah arrahiim naxariista gaalaan laha qaaf allahu a'lam bi muraadihi ilaahi ba qaafkaas wuxuu ula jeedo wal quraanki ayaan ku dhaartay al majid ee sharafta badna ayaan ku dhaartay ilaahi asoo cid dhaarinaysa aysan jirin ayuu dhaartay waxa loo dhaaranay waxay tahay dadka lala hadlaayo ayaa waxa loogu dhaaranayo ayay inkirsan yihiin marka qofka hadduu arrinka inkirsan yahay oo jaahid u yahay si arrintii uu u rumaysto dhaar ayaa lagu xoojiyaa warka ilaahay marka dhaar ayuu maray wal quraanka ayaan ku dhaartay al majid ee sharafta badan ayaan ku dhaartay bal ajibu an jaa'ahum waxa maqan oo maxduuf ah jawaab alqasamki quraanku ilaahay ku dhaartay markii la dhaarto waxa dhimay waxa la yiraahdo jawaab alqasam oo waxa lagu dhaartay muxuu yahay wallahi inaana saas yeelayn markii la yiraahdo saas yeelayn inta jawaab qasamki ah hada ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa quraanka sharafta badan ayaan ku dhaartay hayya ayaa ku xigta jawaab qasamku wuxuu noqonayaa la tub'athunna ba'da al-maut geerida kadib waa la soo bixin doonaa loo gartay jawaab qasamku inuu sidaas yahay aayada kale laga fahmay markaas waxa bal ajibu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun minhum faqala al-kafiruna waxay yiraahdeen hada shay wa shay ajiib oo la yaabo ayda mitna hadaan dhimano oo kunna turaaban oo ciid aan noqono miyana la soo bixinaya dalika kaasi raj'un wa su'ilin baciidin oo fog marka maadaama inkirsan yihiin nolosha dambe in la soo bixin doono yaa ilaahay intuu dhaartay oo quraankiisa uu ku dhaartay wal quraan ayaan ku dhaartay al majid ee sharafta ayaan ku dhaartay waa la idin soo bixin doonaa in waa la idin soo bixin doonaa ay tahay aayadan dambe ayaa si tilmaamaysa bal ajibu way la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun dige oo minhum ayaa kamid ah yani waxay la yaaban yihiin rasuul ilaahay uu soo diray oo bini aadam say ku dhici karta ay leeyihiin ilaahay muxuu malaa'ig u soo dirsan waaye risaaladu way ka weyn tahay dadka iyo bini aadamka malaa'igun baa iska celin karta oo u qalanta in rasuul laga dhigo markaas waxa la yiraahdaa xasaas yani loo sameeynin oo malaa'igta aan rasuul looga soo dhigaynin dadka dhulka joogay malaa'ig ma aha hadii dadka dhulka ku dhaqmaayay meesha haday bini aadamka yihiin ay malaa'ig ka ahaan lahaayeen oo magaalooyinka ay malaa'ig deganaan lahaayeen rasuulka loo soo diraayo malag ayaa laga soo dhigi lahaa law kana fil ardi malaa'ikatun yamshuna mutma'innina lanazalna alayhi min as-samaa'i malakan rasula laakiin hada dhulka dadka joogay malaa'ig ma ahana waa bin aadam dad ah ruux ku nooca oo la hadli kara oo ayagu ay la hadli karaan ayaa loo soo diraya maxaa lagu diidayaa marka kuwana way diidayin marka bal ajibu way la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundirun diga oo minhu ayaa kamid ah faqala al-kafiruna gaaladi waxay yiraahdeen hada kan shay wa shay ajiib oo la yaab leh rasuul baa la iga soo dhigay waxyi baa igu soo degay shay ku dhici kartaa way la siiyadaan waxay aadaa mitna hadaan dhimano oo kunna turaaban ciid aan noqono miyana soo bixinayaan miyana soo celinayaan dalika kaasi raj'un wa su'ilun oo baciid oo fog ilaahay wuxuu ku qad calimna waxaan ognahay ma tanqusul ardu dhulku wixii ay ka nusqaamin minhum ayaga xagooda iska dhaaf ruuxi weynaa asoo dhan iswada haystay in yani la keeni waaye ruuxa markuu dhinto dheecaanka yani dhulka galaya ee qofkii ka baxaaya
ama timaha ka go'a ee dhulka iyo ciidda timahaasi ay gooyaan oo meesha gala ruux walba asagii oo dhan oo waxba ka maqnayn ayaan ognahay oon keenaynaa faraha xataa xariiqimaha ku yaala balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana qad calimnaa waxaanu ognahay maa tanqusu alardu dhulku wixii ay yarayn minhum ayaga xaggooda ruuxa meydka ah dhulku waxa uu ka cuni dheecaan iyo maqaar iyo hilib iyo timo yani wixii dhulka galay oo dhan ayaan ognahay waanu ku soo celinaynaa وعندنا أكتانada waxaa ahaaday kitaabun kitaab xafiidun oo kooba ayaa ahaaday ruux ka maqan diiwaankaas ma jiro ruuxba taariikhda soo maray oo godkaas la geliyay hadhow mar kale ba banaanka la keenaya ruux qarsoomayo oo la weynaayo ama meesha ku haraayo oo meesha looga soo tagayo ma jirto bal kadab way beeniyeen bil xaqi ayay beeniyeen lama goortii jaa'ahum oo yimid yani wax la yaab leh quraanki xaqaha markuu yimid ayay beeniyeen bal iska dhaafay kuwan inay ogolaadaan inay soo bixiyeen kadab way beeniyeen bil xaqi ayay beeniyeen oo quraanka lama goortii jaa'ahum oo yimid fahum ayagu fi amrin amar dhixdi ayay ku sugan yihiin mariijin oo la isku daray hal meel kaliya kuma aadayaan mar waxay dhahan quraankani waa sixir nabiguna waa saaxir mar waxay dhahan quraanku waa shicir nabiguna waa shaacir mar waxay dhahan kitaabkan waa wax la isku abaabulay asaadirul awwaliina kolba meel ayay u boodayaan marka xaqi u yimid intay beeniyeen yaa fahum ayagu fi amrin amar ayay ku sugan yihiin mariijin oo la isku dhex daray afalam yanzuru miyaysan fiirinaynin ila samaa'i samada xaggeeda miyayna fiirinaynin kuwa bacsiga diidan siduu ilaahay wax u abuuray miyaysan fiirinaynin cirku intee buu la egyahay dhulkusi intee buu la egyahay ruuxa bini aadamka markii lagu dhereriyo cirka ama dhulka lagu dhereriyo intaa in leeg ayuu kala egyahay waxaan jin ayuu noqonayaa allihii samada intaa leeg abuuray dhulka intaa leeg abuuray ruuxan daciifka inuu soo bixin waayo meesha kuma jirto la khalqu samaawaati wal ardi akbaru min khalqi an-nas afalam yanzuru miyaysan fiirinaynin ila samaa'i samada xaggeeda miyaysan fiirinaynin oo fawqahum korkooda ahaatay kayfa banaynaaha sida aan u dhisnay wazayyannaaha aan u qurxinay wamaa laha uma sugnaanin min furuujin dildilac uma sugnaanin oo innaga waxyaabaha aan dhisanay ee guryaha ah wax yar markay joogaan ma aragteen dayactir ayay u baahan yihiin gurigii meeshan uu ka soo dumay shamiinta meeshan ha laga mariyo hala istuukee jiingadii way duleeshantae ayaa lagu hayaa samada inaga sarraysa intaa la eg yaa maalmaha ka mid intii caqli uu yeeshay maqlay ama arkin waa sanadkii dayactirka samada lagu sameeyay oo dhinacay ka duunsaneen ma jirto miyay taas fiirineen wama laha uma sugnaanin samada min furuujin dildilac uma sugnaanin wal arda dhulka madadnaaha waan fidinay si loogu kor socdo waan fidinay waalqaynaa waan tuurnay fiiha dhexdeeda rawaasiya buuro ayaan ku ridnay wa ambatnaa waan soo saarnay fiiha dhulka min kulli zawjin nooc walba bahiijin oo qurux badan ayaan ka soo saarnay yani dhulkan waa la fidiyey markaasaa buuro la dul saaray markaasaa roob intii la keenay wa ambatnaa fiiha waxaan ka soo bixinay min kulli zawjin nooc walba oo bahiijin oo qurux badan ayaan ka soo saarnay tabsiratan saas waxaan u yeelnay tabsiratan tusin وذكرى وانو لكل عبد أدون والبا منيب أو نقش بدن أيام سلاس إيالي روح إلهي كعب سنايا وأتوبة كينايا كون كان مركو فيريو آيضا أما علامة كتسنايا إلهي أوديسا أيام ماشي يالا روحي أركي أو عقلي سوء شقينايا وكعب رقادنايا لكن روح قلبي إلهي أودبولي وحبك ما فائدة مكا تبصرة تسن درادة أيام ساس إيالي وذكرى وانو لكل عبد أدون والبا أو منيب أو نقش بدن ونزلنا ونسودجنا من السماء السماء حقها ماء مباركا بيه بركيسان ايان سودجنا وروبك وبيهاس بركيسان وروبك مركو دو اسلا مركي دوغا سو بخايا iyo dhirta say ugu baxayso biyo kale caadi hadii lagu waraayo sida xilli roobaadka ay geedo u baxaan oo kale yaani waraabinta ugu ma baxayaan hayla baraka ayaa ku jira roobka wanazalna min as-samaa'i samada waxaan ka soo dejinay maa'an biyo mubarakan oo barakaysan faambatna waan soo bixinay bihi bil maa'i bihi barakaysna جنات بيرو وحب الحسيد هي مرل الشف الحسيد المحسود مرل القوصو سيده جليده هي مسجده ايو مرل القوصو ايان روبكي كسو سارن والنخله waxaan kala soo saaray والنخله timirta baasiqaat oo dhaadheer laha waxay leedahay timirtu dalcun fiid ayay leedahay nadiid oo isdul saaran miraheedu markay ka soo baxayaan fiideeda intaas oo mira ah oo timir ah ayaa la kablakab isu dul saaran qayb ayay ka saaran tahay marka والنخله وانبتنا النخله timirtana waan soo saarnay baasiqaat ayadoo dhaadheer laha waxay leedahay dalcun fiid ayay leedahay nadiid oo isdul saaran sidaas waxaan u yeelnay oo roobka aan u keenay oo dhulka aan uga soo bixinay beero iyo miro la gurto iyo timir waxaan uga soo bixinay rizqi
للعباد الضومها أن كرس قسينينه هدوث إلهي نوصل بحين لها ملاها دوها كسو بحايا محال لعوني لها وحوى البقى هذا اللعونا أصل وحاوى دوكا يكسو بحين أما هذا كو وشلاه لقليه وسليه مثلا باصله أو كان قمندي للشيدين بلغي سمي أو بركة لغي سمي دوكا يكسو بحايا جليدا بريسكا مثلا رزقا للعباد رزق أو إلهي أدوميس أو كرس قسينا وأحيينا وانصرنا لنا به بالماء المبارك به بركيسنا أي رابك أو حنكنا لنا وأحيينا وانا لنا به أسير بلدة المجال ميتا أو لمتي أو أوارهد أي رابك مركان كدا أسينه يا بر أي كسر بحلا أو مجال النور يطلنا أي ماشي نقول حساب كذلك السداس قرت للسو بحيي أو كلا يا الخروج صبحتان كقمورة لقى صباحا أو ذاتك لصون لنا هنا وسداس أو كلا قرتان أنتو صفرابك إيمان dhulka hadaad qodo meel aad ugu tagaysid doogan iyo cagaarkan ma jirin roobkan yimid ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa amlaaxda meesha ku jirta dhulka iyo turbadii iyo biyihii isu tagay ayaa geedahan quruxda badan ay ka soo baxeen ilaahay meeshaas qalalan geedkan nuuraaya ee dhalaalaya ee dooga ka soo bixiyay ruux qabri dhex jiifan wuu soo bixin doonaa hadduu kala daatay oo yani lafo u noqdayna allihii asagoo lafaba aan ahayn soo abuuray ayaa markale intuu isku dhajiyo soo bixinaya ee maxaa lagu diidayaa درسي ما انت شكوى جاي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.